cadowgana meel shortayna way ka carareen baa la yiri marka waxa la rabaa ha carareen doona laakiin waajibkiina dhameystaan baa la rabaa bilaay howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan oo ay qaadeen ciidamada ururka 48aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Boordhoobo ayaa ka fulay qaar ka mid ah deegaanada hoos imaada degmada Boordhoobo ee dhaca dhinaca Waabari. howlgalkan oo ay hogaaminayeen saraakiisha ugu sareysa ururka 48aad sida taliyaha ururka laba xidigle Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed, taliyaha amniga degmada Boordhoobo xidigle Nuur Kadiye Ibraahim iyo saraakiil kale. howlgalkan oo lagu baacsanayay argagixisada nafla caariga ah ee maleeshiyaadka ugus ay ka fuliyeen ciidamada ururka 48aad ee degmada Boordhoobo deegaanka Taydo oo qiyaas ahaan u jira degmada Boordhoobo 720 kiiloomitir iyo tuulooyin hoos imaada tuuladaasi. intii howlgalkan ay ku jireen ciidamada ay burburiyeen fariisimo si dhuumaaleysi ah ay ku joogeen maleeshiyaadka al-qaacidada argagixisada ah ee al-shabaab halkaas oo lacaga baad ah kaga qaadi jireen dadka reer miyiga ah. laba xidigle Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed, Cabdiraxmaan Madoobe taliyaha ururka 48aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida kaga warbixiyay howlgalkan ay qaadeen ciidamada ururka 48aad ee degmada Boordhoobo. bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waxaan howlgal u soo aadnay deegaanka Qaydo iyo Cali Cabdi iyo deegaanada dhinaca bari ka xiga degmada Boordhoobo halkaas oo nagala sheegay qaybo kamid ah qowleysatadii al-shabaab inay ku soo dhuumaaleysteen maalmahan tuulada Qaydo iyo tuulooyinka hadeer aan joogno waxay kamid yihiin tuulooyinka sida dhuumaaleysiga ay ku imaadaan cadawga al-shabaab anagana waxaan go'aansanay inaan ka xoreyno cadawga ka dhex saarno bulshada Soomaaliyeed ee deegaan weynaha Boordhoobo ee hoos imaado marka saakay waxaan ugu talagalnay howlgalkan inaan ku safeyno deegaanada hoos imaada Boordhoobo khaasatan hadda deegaanka aan ka howlgalayno oo dhinaca bari ah sida tuulada Qaydo iyo deegaanada ama raaxoola ciisa balaas iyo deegaanada ku dhow dhamaan in cadawga ka xoreyno ayaan ugu talagalnay intaana kuma ekaan doon howlgalka haddii aan leedmo waxaan rabnaa inaan sii ballaarino oo aan isku xirno deegaanada Boordhoobo dhamaan inaan sifeeyno haddana ku sii xirno degmada Boordhoobo deegaanada kale ee ma aragtay dhinaca koonfureed ama dhinaca galbeed ama dhinaca waqooyiga intaba inaan ka howlgalnaa rabnaa haddii leedmo sifeeyno howlgalkan marka waxa weeye howlgal aan ku sifeynayna cadawga uga sifeynayna deegaanka Boordhoobo waxaan rabnaa haddii leedmo inaan kasii gudubno oo isku xirno soo furno wadada Garbaharey iyo Boordhoobo anagoo fulinayna amarada ka imaanaya madaxda naga sareysa ayaan saakay howlgalladaas yaan sameynay haddii leedmo waana ay sii socon doonaan waxa dhibaatana kama imaan doonto cadawgana ma aragtay waan ku filanahay inaan ka xoreyno deegaanada aan joogno sidaas ayuu talagalka naga yahay insha Allah ta'ala shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa meel kasta joogaanba inay ma aragtay guul ay gaaraan khaasatan shacabweynaha reer Boordhoobo iyo deegaanadiisa degan waxaan rabnaa inay garab siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee waajibaadka fulinayo oo shaqooyinkooda waajibaadka ah haysta haddii ilaahay idmo nasiyaan xogta cadawga meel kasta ay ku arkaan inay noo soo sheegaan annagana waxaan ballan qaadaynaa meel kasta oo 2 iyo 5 iyo 10 iyo 20 iyo lagu sheega iyo waxa ka sii badanba oo ay deegaanka ka soo howliyaan ee kaga soo dhawaadaan inaan ma aragtay wajihi doono si fiican oo loogu talagalayna waajibaadkaas aan u gudan doono haddii ilaahay idmo